wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah deegaanka beere gobolka Togdheer uga bilowday qodaalka 700 oo hektar oo dalagga wax soo saara. Wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Zeed oo qayb ka yihiin maamulka gobolka iyo ka degmada Burco ayaa gaaray deegaankaasi beer. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha deegaanka beer Xasan Cali Yare Beereed iyo isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Togdheer Maxamuud Cabdi Maxamuud Guray waxaana sharaxaad ka bixiyeen dalagani wax soo saara sida rasmiga looga bilaabay deegaanka beer. waxa maanta la qodayaa 700 dayr ahaan 700 baa la qodayaa. 7 baa imika bilaabantay sharci aanu ku shubaynay imika seedinayseena waxa weeye sharci baxay beer ka baxay. waxay noqotay in sharcaada ka beer ka baxay wasiirkuna kula dardaarmay inaanu ka aan ku beero. haddaan reer beereednahay dhulka imika tirada la sheegay waanu bixinay inta in kale oo leegna waa bixino dadkii ugu diyaar wixii dambe wax qabadana gacmo furan baan ku soo dhaweynayna dhulkii maalkaana waa bixinay waa beerayna anaguna waa beerayna ka beertaana kadib mudana wasiir halkan aynu joognaa waxa weeye waa beer waa meesha aynu shaqada ka bilownay sanadkan bishii Abraar wacyigelinteeda iyo maatinkeeda sida odayadu sheegayna waxay bixiyeen 150 hektar oo agaasimaha guud iyo anagu GPS-ka ku qaaday marka maanta 700 waa iskaashatadii ku guuleysatay qandaraaskii shalayto oo iskaashatada barwaaqo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa dhankooda bogaadiyay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland 150 hektar oo dhul badan wixii ka soo baxay waxaan sida gobolka Togdheer iyo Soomaaliland oo ku filaanaysa yaani way idin ducaynayna maanta waxaan runtii aynu daahfuray mashruuci beereed xukuumadda ama wasaaradda horumarinta beeruhu in lagu beero dalagii beereed oo runtii siyaasadda qarankan xukuumaddan xisbiga kulmiye ee uu maaragtay garwadayka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo mudnaanta siinaysa beeraha. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Zeed oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay dhawaan rajeynayaan in laga maarmi doono dalagga wax soo saaray dalka dibadiisa inooga yimaada. mashruucan waa mashruuci saddexaad ee siyaasadda xukuumadda anigu wasaaradda beeraha fulinay aad baan runtii ugu faraxsanahay maanta mashruucu noo qabsoomo oo maanta dhagax dhigno bilowgiisii runtii aad baan ugu faraxsanahay shaqadana maanta in halka ka bilaabato waxaan u soconaa waxa weeye dalkan sidoo wax soo saarka dalka sidoo kor ugu kici lahaa sidii aynu dalkan aynaan cuntada dibadda ugu tiirsanahay aynu uga maarmi lahayn aynu cuntadeena u cunlahay baynu u soconaa runtii waa bilow wanaagsan weeye ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa waynu hadda bilowgaan bilowna ilaahay xaggiisa madaxaynu ahay rabxadiisa inoo siiyo roob wanaagsan inoo doo ومحمد إبراهيم بريتش TV قرن كالصوماليلاند برعو.